waliba geedka magaalada baydhabo xarunta gobolka Bay riitanka nagaday wasiirka gadidka irkii dhulka dowlada koonfur galbeed Soomaaliya wasiir Cabdullaahi Aadan Balaaga soo baryaalkii la dhaafay safar shaqo ka maqnaa magaloyinka gudaha dalka Soomaaliya gaar ahaan muqdisho baraawe walina garoonka diyaaradaha magaalada baydhabo siweyn ka dhawaayeen mas'uuliyiin ku tirsan dowlada koonfur galbeed Soomaaliya kamid yihiin xildhibaan iyo wasiira iyo waliba islaan gudbiyay wasiirka xarunta wasaaradda gadidka irkii dhulka dowlada koonfur galbeed Soomaaliya soo aan ku warbi jeedkiisu kuma qanay magaalooyinka muqdisho baraawe injineeridii oo dad ajnabi ah banaanka ku sheegay degmada diiran si oo airport bilaabo nasiib wanaag wali ka guureysanay injineeridii diiran muddo 7 maalmood ku hor kuma adamadiyo seedeen la bilaabo airportkii howlgii la bilaabo oo geedku gurowki iyo meel raayis banaantii la bilaabo banaantii hata muddada dhammaan ku hor dhamaatay oo already airportka email banaan oo diyaarsan meel raayis makiinadihii galaan baldoosarada walaa kulli jeeyni shalay bilaawtay baldoosarada iyo meel raayis nadiifintii iyo xaaqowkii madigeedu marka hore shaqaale oo maalintiiba qiyaastay 150 qof iyo meel raayis ku shaqeeyay geedo la banaay shalayna xaaqowkii bilaawday airportka hoolis wala soo oo meel raayis joog ilaahay idin wali rajaynaa si oo ballan qaadan qodobka contractorka inni bil Febraayo tabiyaaqadii airportkaas uu awood inay diyaaradaha yaryar 12 qaadka oo kale inay ku degaan injineerada naftiyoon iyo ballan qaadan inay dadaalkaas meel raayis kaliya doona wal walaa qalab ee lambaahanayna seedeen qodobkaas muhiimsan oo meel raayis sidii arintaas leen fududahay fadhi si xagga transportation-ka ulays badan oo haysid oo meel diyaaradaha helicopter-ka oo United Nations-ka ma wal kala soo jarna marka diyaaradahaas oo isniin walba seedeen laakiin nasiib darrada dheeri hayti kala guurka sanadka ama Christmas-kii meel 22 December yahanay gali meel iskala go'o wali diyaaradaha dib u dhac badan ka kooy oo ilaa bilaha January oo geedo ku siyeed iyo ku Friday marka fursadan muhiimsan ay wali haytay inay 24 bili ta dhaafnay flight-kii ka dambuy oo ku guuleysan injineeridii iyo dadka oo farsamo yaqaan oo qodobka contractor-ka wada diyaaradaas aan saarno hoolisaasan dareerta sidoo kale wasiirka iyo waliba soo hadal qaaday arinta la xiriirta saadaalaha wada toddobaadkii la dhaafay magaalada muqdisho si ka xaraga ku jari madaxweynaha dalka maxamed cabdullaahi farmaajo soo waana sheegay inta toban qof lambaahnya markii ku gudubaan imtixaanka kureynta langaado doona wadanka banaanshay iyo waana barada doonaan civil aviation yeeri wasiirka gaadiidka irkii dhulka dowlada koonfur galbeed Soomaaliya wasiir Cabdullaahi Aadan Balaag shaqaale lan tababar doona civil aviation-ka saana mar hore idaacadaha meel raayis sheegnay inay shaqaalahaas meel raayis dadka dhalinyarada walbaradii ku faa'iideeyay dawlad goboleed kastana wali diirtay oo ka jirta Soomaaliland tuman arday inay landar dalka Turkiga ballangeeyga bilaawatay bartamaha jabani la diray imtixaankaas insha Allah qaado doono sida ka dhaqso badan dad khubaro oo aviation expert ah kooy doonaan baydhabo walana astaynay 5 bilan inay imtixaankaas inta la qaado tumanka ardayga guuleysatay wala indar doono dalka Turkiga oo waxa ka barado doona cilmiga civil aviation marka labadaas arrimood iyo hanbaarsanay safarkii ka bani xamar wasiirka gaadiidka irkii dhulka dowlada koonfur galbeed Soomaaliya wasiir Cabdullaahi Aadan Balaaga iyo waliba hamishiikii wadisiya sidii heli laayeen shacabka ku nool caasimada dowladda goboleedka koonfur galbeed Soomaaliya baraawe ee labor international oo shanta gaarood dunida laga ogoonsanyaa maslax Muhammad maslax raage telefishinka dowladda koonfur galbeed Soomaaliya baydhabo.